وديق إلهي دولة النماذ وشرف عيد النماذ وطول بيليس نماذ ودير ديرني حجابنا النماذ وديق إلهي دولة النماذ وشرف عيد النماذ وطور بيليس نماذ ودير الديران إيو حجابنا وحتى دليل أدير عبتي ونقول طول مسكين كي وقورا كيد الميينا صحيرا تعدي ودني نيمو دلكيو قهيقنا وحتى دليل أدير عبتي ونقول طول مسكين كي وقورا كيد الميينا صحيرا تعدي ودني نيمو دلكيو قهيقنا بدلها بيليسكي شرعي قود ذالي dadku soo helo nabadanta goodu hagar baxa مدالها بيليسكي شرعي قود ذالي dadku soo helo nabadanta guudu hagar baxa هذه أبانو هم برينا عيدك بوليسك ومديننا ويدوته شغالة قرن كوه هيسان ضد بدر ما وجا بوليسكو هوشة وقبته قولدي عيد ما الملتري هانشرتي وهايستين وان كمل هانشري إن عيد ما أيهين عيد ما الملتري قرن كاي عليه يا رواها يمراكيب في تانجية ده وته sanadkii ama 10 sano mar dagaal gala inta kala diyaar garow jira laakiin waxa uu jira ciidamada la yiraahdo ciidamada amniga qaybta security-ga oo dhowr nooc ah oo 24 saacadood qofku uu shaqo ku jiro waxa hubaala ninka booliska 10 sano ka shaqeeya ee si dhab ah hawsha booliska uu qabta inuu la mid yahay 40 sano shaqeeya waayo maalinta uu booliisku shaqeynaya waxay la mid tahay 2 maalmood maadaama aanu saacad qura maskaxdiisa shaqo ka baxay xataa hadduu gurigiisa carruurta la joogo dareen war baa ku taagan maxaa ugu yar ama askari ha ahaado dabla'a ama korneyl ha ahaado ama janar ha ahaadee ninka booliiska gurigu degan yahay agtiisa marka u yartay shaqaaqa ka dhacda shaqaaqo nabadgelyo darrada haba yaratee xaafada islaayay gaari jiiray gaari xoolo jiiray qofkaas isagoo hurda qofka booliiskii waa waajib saaran inuu hawshaa galo waxyaalaha kale soo korreeya ka daran booliiska hawl kale ayaa u taalloon ciidamada kale wata u oolin booliisku wuxuu galay cadaaladii ninka booliiskii ifka iyo aakhiradaba cadaaladda saarinay aakhiro janno toosan uu ku tegi karaa cadaabna uu ku mutaysan karaa dembi kasta oo dhaca oo gar laga qaadayo oo maxkamad la geeyo cadaaladdu waxay ka bilaabantaa oo qofka dembigu inuu dembile yahay iyo inaanu dembi lahayn go'aanka uu xaakimku qaadanayaa waa go'aanka uu soo qoray qofkii ciidamada nabadgelyada amniga ahaa ee uu qofka ka soo qoray
ومرخاتك كوبان ما جيرو قف كلو أود وله إنه الصوت كلا نحجره قضية إسلامتيس كوريجا أو شقاق كان عضي عيد كان وزير ما جري كرو نختارك يبريسك أو قرة أي أود دارك إنه قفك قضية إيه إسلامته عروته إيه أبوه واحد نحكي كره وكوريجا وجري كره أو أحواشه خاص كجر قاضي كره وبريس ينختار عدالة دال الرادينيو dadka oo dhaminayay cadaalad baa la rabaa maxkamadda kana jira xaakimka iyo qofka garta qaadaya waxa koow ah cadaymaha uu soo qoro baaraha stationka jooga ama kiiska galay hadduu baaruhu dalka dambi galiyo cadaalad darro soo qaado uu xaakimku xukumo oo madaxweynuhu saxeexo oo ninkii lagu dilo wuxuu ahaa nin qaranka amaartay dambi ka galay ama qof dilay oo dambigaas qaladii uu soo qoray ayay ninka baarihii halkaa ka soo bilaabay xaakimka dambi male oo xeerariyowga dambi male oo madaxweyne dilka saxay dambi male waxaasoo dambi wuxuu saaray baarihii hadduu intaa xaqa soo maray si cadaaladana waa ahlu janno khayr shaqeeyey oo shar qaran ka qabtay buriisku waa free inanka buriiska calaamadda buruuga ayaa qaranka sitaa awood aan ninka lahayn buu leeyahay waayo wuxuu leeyahay awoodu qofka bar halkaa uu joogo ku qabto qof kasta gaarigaaga dhig uu dhigaya xabsiga iskee dhaqaaq uu dhaqaaqaya awoodda haddii lagu siiye maxaa adigana ku saaran awooddii qarankaad saataaye inaad bini'aadmiga 99% dambiilayaal maaha waa dad wanaagsan ilaahay bini'aadmiga fitru ku abuuray fitraduna waxa weeye ilaahay bini'aadmiga xagga hagaagsan runta sheeg qof dulmin waxa dhicin qof dilin bay bini'aadmiga inta badan ilaahay ku abuuray laakiin mid iyo laba qaldan falka waran haddii ninkii awoodda la siiyay uu dadkii oo dhan ku ciqaabo nin baa qaldan qof baa qaldami kara ilma yar ciyaal isku qaldami kara oday aan waxba arkayn baa qaldami kara islaan aan waxba aqoon baa qaldami karta oo haddaad qof xoogii lagu dhibay qaran ku lahaa awoodii haddaad ku isticmaasho oo tuqaantuqayso oo caydo oo inta qabata jeelka iska tuurto xageebada awoodda ka keenaysa awoodii lagu aaminay baad ku ciyaartay aakhirna waa ku cadaabi filan dambiilata cidubtaadana ubadkaaga ka muuqanaysa haddaad cid dulmido laakiin haddaad xagga wanaagsan isticmaasho ehlu jannada waa tahay ifkana cidubsan baa ka haraysa ogow labadaas buriiska dhex yaala buriiska awood hawsha idin saaray dadka dheertiin ee intaad nooshiin saaran ee buriiska ka wada muuqata markuu 40 jir gaaro ninka buriiska shartu waa shaqeeyo laba dhafoor boo dalada cirrana waalay way ka muuqataa dhibtu haya laakiin haddaad dhibtaas sida wanaagsan u isticmaasho waxa laga yaabaa if iyo aakhiraba inay cid warsan ka hadho awoodana waaleedii بدي قرقر هذا وسارنتي في آخره صح لا والله إلهي وحنا كنا ترى نقطان قوة حقه ونكسر العير تطبضن بعد كتيره وفرت سنة شغالي أروى قانون قار لما سنة شغالي كتيره وما عليه وقرن كود وشقي وأوجد أبوي وقدرت لو رهادني أيها إلوج سنة قارن كان نبدي سكفرده بايع مشترى دار مور السنة ما يرح حشيش مو أوريان jaamacadana lama galeen wasiirro gaari qurux badan ma kaxaysteen oo taay ma xidheen madaxweynena meelaha gacmaha ma taagtaageen intuu halkaas soo taago haddaanay buriisku u gadawoobeyn oonay u dhimaneen oo daafacayn qaranka iyo ciidamada kale ammaan waxaan ka rabaa markaa oon ku dardaarayaa awoodda laydin dhiibay ee nasiibka u yeelateen ee dhib iyo dheef iyo ajar iyo aakhiro cadaabba keeni karta inaad si wanaagsan iyo waddada wanaagsan martaan ilaa imika buriiska Soomaaliland uu ka tilmaamay gobolka geeska Afrika deganahay dawlad yar aan ciid habar badan siinin ragii hore bilaabay rag wada oo badan dhaawacii dagaalkii halgankii ka soo haray kuwa yar bilaabay iyagoo tabarwaasan herin maanta qarankooda ku filaaday aad iyo aad baan isku bogaadinaya waanu idin hambalyeeranaa qarankiina wuu idin ogayaa waxaa tihiin dhibta qabtaana waa laydin ogayahay waxaan ku dardaarayaa halkaa qarankiina uga sii haya nabadgelyada inoo ilaaliya cadaaladana ilaaliya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.